koobka adduunka waa dhacdada ugu weyn uguna xiisaha badan dhammaan tartamada la ciyaaro. Wadan walba ama xidig walba wuxuu jecel yahay inuu mar matalo xulkiisa isagoo ciyaaraya dhacdada koobka adduunka. Haddii xidig ku guuleysto koobkana waa mid kale riyaha u rumowday markii loo eego tartankaasi iyo hadafku ka lahaa inuu ciyaaro mar warbixintan waxaan ku soo qaadan doonaa 5 xidig oo kamid ah xidigaha ugu wanaagsan kubadda cagta xilligan oo markii ugu horeysay ka soo muuqan doona dhacdadan koobka adduunka ka dhici doonta wadanka Qatar sanadkan aan ku guda jirno. ciyaartooyga koowaad waa Aurelio Tchouameni, qadka dhexe kooxda Real Madrid. bandhig wanaagsan ayuu ka soo sameeyay kooxdan dhawaan iyo kooxda lacag badan ka soo qaadatay horyaalka Faransiiska kooxda ciyaartooy Monaco. Tchouameni wuxuu matali doonaa Faransiiska koob adduun markii ugu horeysay isagoo ka faa'iideysanaya dhaawac Paul Pogba N'Golo Kante. waxaan rajayn doonaa xidigan koobka adduunka ugu horeysay inuu xirto maaliyadda wadanka difaacanaya koobka adduunka Faransiiska. xidiga labaad waa Jude Bellingham. daayarkan waa mid ka mid ah xidigaha daadiyada u soo baxay xulka Ingiriiska. bandhigiisa wanaagsanaa oo ka sameeyay xilligan kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka Ingiriiska ayaa keentay inuu qayb ka noqdo xidigaha asaasiga ah ee xulka saddexda libaax. markii ugu horeysay dhacdada Qatar lagu qabanayo ayuu ka soo muuqan doonaa isagoo matalaya xulka saddexda libaax lagu naanayso ee Ingiriiska. xidiga saddexaad waa Vini Jr. bandhigiisa Real Madrid bandhigiisa xulka jaalayaasha ee Brazil ayaa ka dhigaya markii ugu horeysay inuu noqon doono xidig asaasi ka ah xulka qaranka dalka Brazil dhacdada ka dhici doonta wadanka Qatar. wuxuu ka mid yahay xidigaha ka mid noqon doona kuwa markii ugu horeysay ka soo muuqan doona dhacdada koobka adduunka daayarkan Brazil ka soo jeeda. xidiga afraad waa Pedri, qadka dhexe Spain waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dhaxalka rasmiga ah ee Xavi Iniesta, xidigihii wanaagsanaa ee Barcelona xulka Spain. bandhig wanaagsan ayuu soo sameeyay, wuxuu ku guuleystay abaalmarinta daayarkii ugu wanaagsanaa. Barcelona ayuu u ciyaaray kulamo badan ee xulka qarankiisa dalka Spain. wuxuu ka mid yahay xidigaha markii ugu horeysay ka soo muuqan doona dhacdada koobka adduunka ee Qatar lagu qaban doono sanadkan 2022. Pedri ayaa laga filan doonaa Spain inuu wax weyn gaarsiin doono sanadkan. xidiga ugu dambeeya waa mid la yaab ay noqon doonto markaad maqasho, waa Virgil van Dijk. waa xidiga shanaad aan dhacdadan ku soo qaadanayna ama sheekadan xidigaha markii ugu horeysay ka soo muuqan doona koobka adduunka. daada 30 ayuu dhaafay xidigan. waxaad isweydiinaysaa Van Dijk markii ugu horeysay miyuu ka soo muuqanaya koobka adduunka? waa markiisii ugu horeysay uu ciyaari doono xulkiisa Holland. daafacan ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan dunida dhanka daafac sanadkan ama xilligan ah daafac ugu qaalisan ciyaartooyda ciyaarta kubadda cagta. markiisii ugu horeysay xulka Orangeska lagu naanayso ama Netherland ayuu xiran doonaa maaliyadda isagoo ka mid ah daafacyada hogaamin doona xulkiisa markii ugu horeysana ka soo muuqan doona dhacdadan xiisaha badan ee koobka adduunka. 5 xidig ayaa xidigo waaweyn oo aad u wanaagsan markoodii ugu horeysana ka soo muuqan doona dhacdada koobka adduunka ee wadanka Qatar lagu qaban doono. adi ahaan xidigay aad u la yaabtay markii ugu horeysay inuu ciyaarayo koobka adduunka.